بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة وذولا لها يقاري خير كتعلو لما أنتين أحبابي وإن سلام يا ميل كسو عالم كي غلا سعتان إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله مركز كن سعريي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله، شكر لله. soo dhawaada walaalahaygu qaaliga ah, ka qayb qaado sadaqada lagu garab istaagayo walaalaheen reeqasa. kusoo dir wixii awoodaada lambarada meesha ku qoran. haddaanan awoodin, ilaahay subxaana watacaala uu bari walaalaheen in ilaahay subxaana watacaala amni siiyo, in ilaahay subxaana watacaala cadowga uu ka qabto. إلهي بقى سبحانه وتعالى مهد إسكالي إسكو كان سعري أنه عافي ما قمنا. إلهي سبحانه وتعالى حريم كاسي حنا نروح دين نقول سعري. إلهي سام هاد إسكال والله لها قارقة مر والبإلهي يكون أمهد علينا والله لها قارقة سولو هذا أحبابي ما توحينو ذا برنامج أدي آدو قيمة بضن oo aan jeclahay dhammaantiin inaad ka faa'iidaysataan. markaa ka faa'iidaysataan oo ku dawowdaana isoo xasuusta walaalaha qaaliga oo ii soo duceeya, oo ilaahay cafiya caafimaad ii weydiiya, oo ilaahay aakhirada iyo adduunkayga inuu ii hagaajiyo ilaahay ii weydiiya. waa ina salaamaya walaalaha qaaliga. soo dhawaada walaalaha qaaliga, like fara badanna ku shuba walaalaha qaaliga videoga, staatusyada ii saara, meel kasta walaalaha qaaliga igu sharkareeya, walaalaha u dira. maasha allah, wax badan baa laga faa'iidaya walaalaha qaaliga barnaamijyadayda. waa idin salaamaya. soo dhawaada walaalaha qaaliga. maanta waxayni wadaa qisas laga arkay geedka gobka ee sadriga iyo ama sadri maxay sheeg anaga waxa dhahnaa gob baa dhahnaa walaalaha qaaliga. sadri waa luqa alcarabiya. sidoo kale walaalaha qaaliga markii la ridqo ama la tumo ama bowdhar laga dhigo waxaa la dhahaa qasil ayaa la dhahaa. walaalaha ka faa'iidaystaan geedkaas walaalaha qaaliga sida loo isticmaalo qisas cajiib oo laga arkay ayaa maanta inay wadaa. soo dhawaada walaalaha qaaliga geedka marka walaalaha qaaliga waa geed aad iyo aad cadiim u ah. ilaahay subxaana watacaala qur-aanka kariimka inuu kugu sheegay isagoo ku tilmaamaya inuu kamid yahay geedaha jannada ka baxa walaalaha qaaliga, inuu kamid yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka sugan yahay, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam meydka ha lagu dhaqo yiraahday. sidoo kale ha laisku daweeyo inta 7 xaba la tumo oo dhagax lagu tumo baa laisku daweeya walaalaha qaaliga marka maasha allah tabaaraka alculamaa cilaaj waxay dhahaan walaalaha qaaliga wax kasta daawo ka yahay, hadday tahay cudur ruuxiya iyo hadday tahay cudur kaleba. waayo cudurro badan baa lagu dawo geedka. waa geedaha dhareera, marka kala goysyada aad buu ugu fiican yahay walaalaha qaaliga. waxyaalo badan buu daawo ka yahay, khaasatan cudurrada ruuxiga walaalaha qaaliga buu daawo ka yahay, sida isha xasadka, sixirka iyo waxyaalaha kale ee cudurrada ruuxiga ee jibinka. ilaahay baan subxaana watacaala ka magan galnay. walaalaha uu hayana allah ka daweeyo. geedkiibaa maanta inay wadaa walaalaha qaaliga. anigu labadaba waa isticmaala, isagoo caleentiya iyo qasilkaba waa isticmaala walaalaha qaaliga maanta waxayna tusayaa caleentii walaalaha qaaliga baa ina tusaya. waxaan malaynayaa hadda sidaa haddaan soo dhaho walaalaha qaaliga inaan si fiican loo arkayn. sadri leafis baa ku qoran english walaalaha qaaliga caleenta waqtaas walaalaha qaaliga caleentiisa wataas intaas la eg tahay caleenta gobka ama geedka sadriga caleentiisa wataa. miraha iyo caleentaba labadaba waa laisku daweeyaa bay dhahaan culimada. ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga walaalaha qaaliga geedkan asagoo sidaan oo macnaha caleentan waa isticmaala. anigu waxaan sidoo kale isticmaalay asagoo walaalaha qaaliga bowdhar oo bowdhar laga soo dhigayna qasil baa la dhahaa. qasilkana waa isticmaalay. marka walaalaha qaaliga ka faa'iidaystaa. runtii siyaabaha loo isticmaalay haddaa idin guda galo aniga saa u isticmaalay walaalaha qaaliga. markii ugu horreysana u bartay sida loo isticmaalo waxa weeye waxaa samaynaysaa walaalaha qaaliga geedka markaad isticmaalaysa isagoo geed 7 caleen waa qallalan yahay. anigu kaan isticmaalayo baa tumaysaa oo waxaa ku tumaysaa mooye iyo kal baa ku tumaysaa, kadibna biyo galaas biyo baa ku dhex shubaysaa. waxaa ku tufanaysaa qur-aanka ilaahay suuratulfaatixa intaa ka aqrin kadid. haddaa hal mar aqrin kadid waa ku aqrinaysaa. haddaa 7 jeer aqrin kadid waa ku aqrin. haddaa ka badan aqrin kadid waa ku aqrinaysaa walaalaha qaaliga suuratulfaatixa, mucawdateynka, aayatulkursi, labada aayadoo suuratulbaqara u dambeeya, iyo ducooyinka adkaaraha sida acuudu bikalimaatillahi taamaati min shari maa khalaq, bismi illaahi alladii laa yaduru. ducadaas oo kale baa ku akhrinaysaa. ducay adkaarahaas ku akhrinaysaa walaalaha waa ku tufaysaa, kadibna waa cabaysaa, waa ku qubaysanaysaa. maxaa sheeg meelaha ku xanuunaya ku dhaqaysaa. ma fahantay walaalaha qaaliga sidaasaa loo isticmaalaa walaalaha qaaliga
ومركي لقو قبيستنا وحري معنيه قبيس قاس أسجر وحبوكا كحيليا جودهنا لفتر كذا ولا عبا ولا سجد ويا ولا لها قارقة نبينا عليه الصلاة والسلام وكسرنا هاي أيضا معنيه تضوى حشر حبو وداح لقو تمانيا مركا مويها أذيقنا كتمانيا سولا لها قارقة maadaama aana dhagaxa arkayn dadka qaarkood walaalka aana heli karin kan wuxuu isku daweynaya walaalaha qaaliga ah asagoo bowdharan waa qasilkii hore ee soomaalida isticmaali jiray dhareer kale qasilo badan baa hadda soo baxaya kaasaa walaalaha qaaliga weeye oo meydka lagu dhaqo walaalaha qaaliga qasilkaas weeye qasilka waxaa samaynaysa asagoo nadiifa soo gadanaysaa waa shaqshaqaysaa waa sii shaqshaqaysaa waxaa ku shaqshaqadaa mara ku shaqshaqdid iyo haddii wax kale ku shaqdidba si nadiif ah oo calooshaada wax qaldan aysan u tegin isaga nadiifa meelaha qaarkood wax lagu gado qaar baabuur iyo wax galaan marka si nadiifa isaga maxaa sheeg iyo waxyaala ay galaan isaga nadiifi marka la iska si fiican u shaqshaqtid waxaa samaynaysaa qaadada afkeeda wax yar oo biyaa baa ku qasaysaa adiga biyo oo qasitaan caadiya ma ahan wax yarba markuu adkaadoba sidii kaniiniga u liqaysaa biyihii quraanka ku akhrida goonima biyaha quraanka u akhrinaysaa baa kadib cabaysaa walaalaha qaaliga maasha allah runtii cajaa'ib baa ka arkaysaa aniga wax badan kaasna wax badan baa isticmaalaya kanna waa isticmaal walaalaha qaaliga waana lagu qubaystaa sidoo kale maxaa sheeg waxaa lagu sameeya walaalaha qaaliga waa la cunaa waa la cabaa marka ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga khayr iyo farxad inaan kala gulantaa bayna jiraan riyooyin badan baa ka arkaysaa wax qabtid riyooyin baa arkaysaa wixii way kaa tegayaan way baaba'ayaan wixii ayagoo dhimanaya ayaa arkaysaa walaalaha qaaliga soo dhawaada walaalaha qaaliga ka faa'iidaysta waxaan guda gelaynaa qisaskii qisada ugu horreysa walaalaha qaaliga gabar aan qaraabanahay baa ka aragtay gabadha aniga waagan isticmaalaya mar hore ahayd dhowr sano ka hor ayaa u sheegay gabadha way xanuunsaneed walaalaha qaaliga muddo dheer bay cilaajyo daba wareegaysay gabadha waxyaalo waaweyn kaba dhex hadlayaan laakiin guurka wuu ku cuslaa ayadoo haddii qof shukaasato iyo haddii macnihii marna ayadaa nici jirta qofka haddii shukaad marna isagaa macnihii qofka isagaa iska tegi jiray waxyaalaha cajiibkaa bay ahayd marka maxay sheeg marba i weydiisay maxaa sameeyaa waa u sheegay waxaa ku yidhaahday maxay sheeg laba arrin baa kugula talinay qasilkaas oo adkaartaas aad ku akhrisanayso ruqya sharciya intaa idiin sheegay haddaba u sheegay suuratun maxay sheeg faatixa macawdateynka iyo maxay ayatul kursi labada ayat suuratul baqara u dambeey iyo labada adkaar a'uudu bikalimaatillahi taamaat iyo bismillahi alladhi maxay labadaas adkaar baa u sheegay walaalaha qaaliga kutub fa'il habeenkii markaa si seexan si aniga u isticmaal ما شاء الله قبل يوقف استعمال شو الله لها قارئة سيدو كل واحد وشيء سورة البقرة اللي جوكتي سو سلق النبي عليه الصلاة والسلام لإنه بعض السواح يقول سلق النبي صدح بقول أفر بقول ما نك وجارسين شري سورة البقرة أنا هالمر بآخرين ترتي وحين استعمالي ترتي جيت كا إنكو محش الجوب كان جيت كي صدري بي محن كذا قصر كي مركا وان لعين جيت كان مركو ما هلاي ولا لها قارئة ولا لها maxay sheeg wadankii hooyo jooga geedkan walaalaha qaaliga wada helaysaan oo wadankeena meel kastoo ka baxa walaalaha qaaliga ah magaaladii aniga aan ku dhashay maxay sheeg magaalo bacadweyn la dhahaa ku dhashay walaalaha qaaliga ah wuu ka bixi jiray oo geedadka goofka ayaama jooga aad buu uga baxaa walaalaha qaaliga sidoo kale maxay sheeg wuxuu ka baxaa wadankeeni muqdisho saaid walaalihi ila soo wadaaga muqdisho ka baxaa meelo badan wadankeeni kamid uu ka baxaa halaga faa'iideysto walaalaha qaaliga geedka waa geed aad iyo aad caliim ah ma ahan cudurrada ruuxiga bas inuu dawo ka yahay cudurro badan la daawo ka yahay walaalaha qaaliga sida maxay maskaxda uu kobciyaa maxay sidoo kale walaalaha qaaliga wuxuu maxay u fiican yahay walaalaha qaaliga kala goysyada oo geedaha dhareerada leh way walaalaha qaaliga marka waalidiinta hala siiyo geedka looga faa'iideeyo ha lagu qubaysto maxay dharka ha lagu dhaqdo waxyaalo badan buu maasha Allah tabaaraka raxmaan u fiican walaalaha qaaliga marka faa'iideysto walaalaha qaaliga soo dhawaada qisadii baa inay wadayay gabadhii walaalaha qaaliga qisadeeda maasha Allah tabaaraka raxmaan gabadha kow marka u sheegay ku ilaa saa u isticmaal sidii bay samaysay waxay ku tafsir jirtay adkaartii habeenkii bay cabbi jirtay waxay aragtay riyooyin geedkana runtii markaas u bilowday hadii wax jirka ku jiraan riyooyin baa arkaysaa walaalaha qaaliga wixii baaba ayaa arkaysaa walaalaha qaaliga riyooyin baa ku bilaabanaya qarawiya ku bilaabanaya hadii macnihii ka adag yihiin iyo hadaa ka adag tahay labadaba waad ku arkaysaa walaalaha qaaliga because dadka ilaahay subin maahan dad baa shayaadiinta ka baqa walaalaha qaaliga dadna way adag yihiin oo way iska celiyaan walaalaha qaaliga ma fahanteen adayga taasa ka wada dad baa iska celin kara oo ka baqaan dadna way bursadaan walaalaha qaaliga oo way wacaga jugleeyaan ma fahanteen walaalaha qaaliga markii ka faa'iideystaa ha ka baqinina shayaadiinta dadaala quraanka ilaahay baa haysataa maasha Allah geedahaas cilaajka dib u nabawiya waa geedihii nabiga calayhi salaatu wasalaam
كسوغان ولا قاريغا اسكو دوي marka maasha Allah gabadhii way samaysay riyooyin baa waxay tiraahday ii bilownay riyooyinku waxay dhahday Faadumo habeenkii ugu horreysay waxaan arkay bay tiraahday labada lugood oo silsilad iga xiran tahay silsiladu quful uu ku xiran yahay markaasa waxay tiraa waxaa leeyahay war kaalay iga furooy dadka waxaan leeyahay kaalay iga furooy waxaan tegay masaajidka sabanka ayaan tegay kor baan fuulay waxaan raadinaya sheekh umal kaala iga furo waxay sheeg iga fura maxay sheeg qufulkan dadkii dhan igu soo yaacay waa la iga furay bay tiri alxamdulilah gabadhaas walaalaha qaaliga haddaa idin dhaho maalmo yar kadib baa la soo doona ka waran walaalaha qaaliga weliba guur aysa filanayn hadda waxay dhahdaa allah waa arrimihii ilaahay farajka iigu furay ma xasuusataa Faadumo arrimihii ilaahay farajka iigu furay qisadayda maxaa dadka ula wadaagi weyd hadda dhow maalin kasta oo ila soo hadasho isla hadalna gabadha qaraabo dhowaana waxay dhahdaa qisadayda dadka maxaa ula wadaagi weyday farajkii waagi ilaahay ii furay waxay ahayd intaas maxaa lagu geedkan oo lagu akhriyay macawdatiinka walaalaha qaariga iyo suuratul faatixa iyo maxay sheeg aayatul kursi iyo labada aayad suuratul baqara u dambeeya iyo labada adkaar bismillahi alladhi laa yadurru iyo maxay sheeg a'uudu bikalimaatillahi taamaat lagu akhriyay walaalaha qaariga iyo saliga nabiga ay badsatay iyo suuratul baqara oo joogtaysay intaas gabadha walaalaha qaariga ku dhimaatay guur qurux badan oo maasha Allah tabaarak raxman qof dadka u xiga oo weligeed ay safileen walaalaha qaaliga maasha Allah tabaarak raxman Allahumma barik ilaahi oo barakeeyo wili awlaad may helin gabadha u soo duceeyay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaad barakeysan oo baariya siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka farxiyo aamin walaalaha qaaliga waxa guda galeynaa qisas kale oo idin soo diyaariyay walaalaha qaaliga qisaskan waa soo qortay waayo meelo kala ka keenay qisada gabadhaas goob joog baan u ahaa walaalaha qaaliga qisada ugu horeysa walaalaha qaariga gabar baa ka sheegtay gabadha waxay tiraahday geedka gobka iyo sadriga 21 maalmood ayaan jirkayga ku dhaqayay oona cabayay intaan adkaar ku akhriyo runtii jirkaygii wuxuu noqday kalar kale bulug buu noqday waxyaalo cascasaana oo goobaabin ah oo in la igu dhufta oo maleynaysa jirka uu iga soo baxay bay tiraahday alxamdulilah waxaan samayn jiray bay tiri gabadhaani jirka intaan tumo geedka oo macnihii ridqo ama tumo oo jirka dhan ku dhoobo baan gurigay ku joogi jiray bay tiraahday salaada casar markii la gaaro ayaan waxay tiraahday waxaan isaga dhaqi jiray cusbo ayaa isaga dhaqi jiray walaalaha qaaliga cusbo biyo inta cusbo ku shubo ayaa isaga dhaqi jiray bay tiraahday alxamdulilah kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ku dhaartay noloshaydii dhan way isbedeshay bay tiri noloshaydii dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala hamigii iga qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay damacaygii iyo macnihii wanaaga macnihii adduunyada aan ka qabo awad gabar quusatay bay ahayd walaalaha qaaliga damacayga iyo wanaaga iyo waxa rajeynayo dhan way wanaagsanaadeen wixii ahayay xasad bay ahaayeen walaalayaal riyooyin baan arkay bay tiraahday gabadha marka walaalayaal ka faa'iideystay geedkan runtii waxaan haysanaa nimcooyin badan ayaan haysanaa geedka aniga waaye aragnimo ayaan u leeyahay runtii dhibaato badan buu ilaahay iga saaray nimcooyin badanna ilaahay wuu iigu siiyey ee ka faa'iideystay tiri gabadhan maasha Allah tabaarak raxmaan ka faa'iideystay walaalaha qaariga qisadan ayadana gabar baa ka sheekeynaysa gabadhan waxay tiraahday wejigayga iga bedelmay bay tiraahday wejigii markuu iga bedelmay oo nabro iga soo baxeen oo haaro aan leeyahay oo foolxumo aniga dhan aan ahay markaste ayaan waxaan arkay geedka sadriga oo laga sheekeynayo inuu daawo yahay waxaan sameeyaa baa tiri geedkan soo qaadaa caleentiisa waa tumaa kadibna waxay tiraahday adkaar baan ku akhriyaa wejigayga maryaa bay tiri si ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigayga iigu qurxiyo wallahi wejigayga bucbuc buu ii noqday bay tiraahday sidoo kale qurux buu ii noqday bay tiri sadriga runtii waa geed la yaab loo cajiib wejigii jileec naacima qurux fudayd baa dareemayaa bay tiri inuu culays wejigayga ka dhacay bay tiraahday haddana cagaha ayaan mariyay bay tiri cagaha ay xanuuni jira cagahaan mariyay bay tiri cagahaygiina qurux cadaan bay ii noqdeen bay tiri raaxa iyo fudayd baan dareemayaa bay tiraahday alxamdulilah mana joojin doono ficilkaas waxaan rabaa inaan sii xoojiyo inaan weligay ka tegin baan rabaa ruqyada aan ku akhriyay inaan sii xoojiyaan rabaa walaalayaal idinkana ka faa'iidaystay tiraahday gabadhaani oo macnihii geedkaas isku daweeya aniga daawadaas ka arkay wejigii bucbuc noqdo lugo ay xanuuni jiray markaa mariyay lugihii maasha Allah tabaarak raxmaan walaalaha qaaliga qisaskan walaalahan labada gabdhoodba waxay ka soo sheegeen hal group ay ka soo sheegeen oo macnihii ay leeyihiin waxaan ku fiicnaanay maxay sheeg geedkaas ku fiicnaanay iyo qiso kale ay soo wada waa 3 qiso hal group ay ka soo sheegeen groupka marka sida loo isticmaalay walaalaha qaaliga sida aniga idin tusayo aniga way aragnimada u leeyahay ma ahan si kale ahayd
geedkii oo la ridqay oo macnihii biyo lagu qasay baa la isku dhoobayaa oo meesha ku xanuunaysa lagu dhoobayaa oo la cabayaa jirkana ilaa dabiiqa dacal baa isku dhoobaysaa marka runtii anigu hadda geedkan oo dhan haddaan qaso jirkayga maasaa ku dhoomaya ana waxaa sameeya waan ku qubaystaa walaalaha qaaliga caadi baa ugu qubaystaa qubayska caadiga biyaha ku daraa biyo badan baa kusii daraa biniya ilaahay qur-aankiisaas aan ku akhriyey iyo macalin geedkaas waa ku dawoobaya saasaa sameeya walaalaha marka wejigoo kale xoogaa waa la marin kara laakiin jirka dhan waxa lagu dhoobi karo dabcan qasilka oo kale qasil badan intaasoo geed waa samayn kara laakiin geedkan annaga waddankaa joogna qaali intaa yartaa waxaa laga soo siiyey 1,000 shilin walaalaha qaaliga baa laga soo siiyey marka dadka waddankii hooyo joogow sida gabdhahan oo kale geedka isku dhooba ma fahanteen maasha allah qisada saddexaad walaalaha qaaliga ah ee qisada afraadna gabar baa ka sheekatay gabadhan waxay tiraahday geedka sadriga 7 maalmood baan waday bay tiraahday 7 maalmood markaan waday bay tiraahday oo aan ku qubaysanayay aanan cabayay bay tiraahday milixdana aan kusii qubaysanayay bay tiraahday runtii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ii qadaray bay tiri inaan guursado oo waxay tiraahday waagii horey tiraahday guurka dareen nacayb ah aan guurka nacayo baa igu jiri jiray bay tiri subxaan allah markaan geedkan isticmaalay wuu iga ba'ay bay tiraa dareenka ahaa nacaybka guurka inaan nibcahay waxay tiraahday gabadha markaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ii fududeeyey guurkii runtii ilaahay subxaana wa tacaala nacaybkii wixii iigu jira wuu iga saaray alxamdulilah guur baa waxay ku hamiyey ilaahay subxaana wa tacaalana wuu iigu sahlay muddo yar kadib baan guursaday bay tiri xaalkaygana wuu fududaaday bay tiri gabadha maasha allah tabaarak raxmaan axbaabii ka faa'iidaysta walaalaha dareenka dadku ayagaa isgaranaya gudaha ka dareemaya dareenka guur nacaybka ah haddaad leedahay runtii waxbaa kaa khaladan ma fahanteen guurku wax wanaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu guurka badiya si ummadaydu u badato marka maasha allah tabaarak raxmaan ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga geedkaas walaalaha qaaliga ah waxaa marka lagu akhrinayaa macnihii waxaa lagu akhrinayaa adkaar iyo qur'aan baa lagu akhrinaya walaalaha qaaliga saasuu cilaaj ku noqonayaa marka faa'iidaysta walaalaha waxaa uga cududaarayaa musqulaha la isticmaalo ee loo isticmaalo walaalaha qaaliga ah xaajada kuwaas walaalaha qaaliga ah qur'aanka ilaahay ha laga ilaaliyo meelaha kale hadda walaalihii wadankii hooyo joogay iyo meelka qubaysataan meelo kale meela ku daadisaan way helaysaan laakiin walaalaha kale jikooyinka walaalaha qaaliga jikada oo kale ayaa lagu daadiyaa biyaha meesha weelka lagu dhaqo oo kale halkaasaa lagu daadiyaa marka maasha allah ka faa'iidaysa wacaan walaalaha qaaliga khayr iyo farxad baa idin rajeynayaa markaa ka faa'iidaysataan oo maasha allah tabaarak raxmaan ku dawowdaan ii duceeya walaalaha qaaliga muhiimadda intaas weeye ilaahay cafiya caafimaad ii weydiiya ilaahay subxaana wa tacaala cadowga midkiisa muuqda midkaa muuqana ilaahay iga qabto iigu duceeya khayr farxad baa idin rajeyna walaalaha qaaliga ka faa'iidaysa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen hanaga wada farxiyo khayr farxad ka faa'iidaysa waxaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته